عبد الغني bal waxaad noo sharaxdaa boardkan maanta waad aragtaan hadda xaafadahayga waan geli karanaa leerka magaaladana waan geli karanaa xukuumadda qudheeda aad bay u eegayaanoo dhismaheedu dee wax badan baa looga tiriya shirarkii ugu waaweynaaye la isku xantaabay gobolku leeyahay oo lagu dhex qabtay iskuulkan biyaha qasabadaha ku jira kuwa dhismaha mooyaane waxa geliyay dhammaan ardayda halka qalin jabisay oo aanu caaqilo u kaxaysan suldaanna aanu u kaxaysan aqoontiisa ku filan oo farsamada gacanta waa wax dalka oo dhan ka dhinaado anfacaya runtii xirfadu waxyaabaha ugu qaalisan ee bulshada markay horumarayso ay ku horumarto anigu dee heer sanaag baan ahayo weliba dee musharaxna waan ahaa u sharaxanahayo sanaag musharaxana codna waa ka doonaya wadankuna dee wuxuu guurayaa iminka qof iyo iskilkii qof aan waxba baran ama xirfad lahayn meel la gaari maayo xukuumadda qudheeda aad bay u eegayaanoo dhismaheedu dee wax badan baa looga tiriya shirarkii ugu waaweynaaye la isku xantaabay gobolku leeyahay oo lagu dhex qabtay waxaan leenahay warba horta abaaraha iyaga la isuma abtiriye aynu bismillaahir rahmaanir rahiim waxaa maanta na soo booqday wafdi aad u ballaaran oo ka yimi gobolka Sanaag ayaa nagu soo maray iskuulka farsamada gacanta ee degmada Garadag waan idinka mahadcelinayaa marka koobaad mar labaad haddii aan in yar idinka warbixiyo dugsigan farsamada gacanta ee Garadag dugsigani waa dugsi horta cusub oo sanad buu jiraa muddada sanadka uu jiro wuxuu ku yimi iskuulkani keentay baahida farsamada ee dadka reer Soomaaliland u qabaan inay bartaan farsamada gacanta baahidaas oo ay gaar u sii yeelatay gobolka Sanaagna iskuulkan waa iskuulkii ugu horreeyay noociisa ee ka hirgala degmada iyo guud ahaan gobolka Sanaagba iminka muddada sanadka uu jiray iskuulkan waxaa lagu bartay oo uu bixiyaa oo u qalabeysan yahay 7 xirfadood oo ay ka mid yihiin xirfadda nijaarnimada xirfadda wadsaadnimada xirfadda leydhka xirfadda soolarta biyo gelinta laxaamadda dawaarka iyo xirfadda xinaha iyo qurxinta 7daas xirfadood ayuu iminka bixiyaa insha Allah sanadka soo socda cusubna waxaan doonaynaa insha Allah inaanu gaadhno xirfado kale oo waaweyn oo iskuulku hirgeliyo oo ay ka mid yihiin beerihii makaanikadii haddii ilaahay yiraahdo waan sanadka cusub iyo qayb badan oo dhulka bannaan ee iminka iskuulku leeyahay doonayo insha Allah in laga dhiso oo ay ka hirgasho si dadka reer Soomaaliland oo dhan ay u noqdaan mid ay ka faa'iideystaan dugsigan muddadii yareedii jiray wuxuu muujiyay dadaalo fara badan oo aan ka maamul ahaan ku hogaaminay inaan soo gaarsiino heerkii ugu sarreeyay ee dugsi farsamo gacmeed soo gaadho isagoo jira muddo xileed sanadka sida haddana waxaad muuqata roolka iyo waxyaalaha uu ka daboolay bulshada leerka imika laga wado degmada ee Garadag dad ka shaqeeya dhammaan leerka gelinaya oo ardaydii halkan ka aflaxday ka qalin jabisay ayaa ka shaqeysa oo leerka magaalada gelinaysa qaar kale waxay u kala shaqo tageen gobolada dalka insha Allah wuxuu noqon doonaa xarun soo saarta farsamo yaqaano dalka tirada ka baxday imika muddada sanadka uu jiray ka qalin jabisay waxay ahayd 121 arday ay ka qalin jabiyay imikana dafcadii labaad buu diyaar yahay wali waxa imika dhigta oo imika aanu bilownay qaybtii solar energy-ga oo guud ahaan loo qaybiyay Soomaaliland oo dhan in lagu barto solar energy laga faa'iideysto oo imika ku jira tababarkii 45 arday baa ku jira oo iyagu si gaar ah u baranaya level 2-ga solar energy-ga tamarta cadceedda iyo maadaama ay adduunka u guuray imika renewable energy-ga taas keentay markaa in ardaydana ay ka mid noqdaan iskuullada bixiya tababarka solar system-ka tirada ardayda dhigata iminka ku jirta solar energy-ga waxa weeye 45 arday oo takhasuskoodu yahay inay bartaan renewable energy-ga waxaan u mahadcelinayaa maamulka iskuulkan farsamada gacanta ee degmada Garadag waxaan ka nimi xaruntii gobolka Ceergaabo waxaa socodkeygana daaran yahay indhaynta xaaladda guud ee iminka jirta ee abaaraha oo aanu eegaynay sida ay dadka iyo xooluhuba abaartu u heshay runtii abaar weyn baa jirta abaar u baahan gurmad dad iyo dunyaba u baahan in loo gurmado waxa weeye dhulkani waa dhulkii xoolaha dhulka xooluhuna waxay aad iyo aad ugu tiirsan yihiin degmooyinkan iyo magaalooyinkan ku seetan ama guud ahaanba Somaliland oo waxa kaliya aynu ka dhoofino
waxaa kaloo runtii dee roobka u baahan bad iyo beriba xayawaanka ku nool iyo dadka ku noolba baahi weyn oo roob baa jirta ilaahay baynu ka baryaynaa inuu roobka ilaahay inoo keeno alxamdulillahi rabbil caalamiin cirku wuu fiican yahay eergaabo oon xalay iyo habeen hore joognay roob baa ka da'ay ilaahayna waxaanu ka baryaynaa mid caama oo nin walba gurigiisa ku hela oo guurista iyo abaartana ka jebiya gurigiisana ku nageeya in ilaahay keeno sidoo kale waxaanu hadda ku sugannahay dugsigii farsamada gacanta runtii xirfaddu oo waxyaabaha ugu qaalisan ee bulsha markay horumaraysa ay ku horumarto hadday tahay farsamada gacanta hadda maamuluhu wuxuu inooga warbixiyey ilaa 7 item oo lagu baranayo farsamada gacanta farsamada gacantu uma baahna oo keliya intan degmada Garadag laakiin Somaliland bay muhiim u tahay waxaan ku baaqayaa dadka gobolka Sanaag iyo guud ahaan Somalilandba inay ka faa'iideystaan xirfadaha kala duwan ee gacanta runtii dadka jaamacadaha ay ogtiina waddanka shaqo la'aan baahsan baa jirta jaamacadihii laga soo baxayay inama wada anfacayaan shaqo kuma wada helaynaa waxaan ku baaqayaa ardayda sida fiican wax u baratay inay ku daraan farsamadii gacanta hadday dawaarnimo tahay iyo hadday plumbing tahay weldingkii hadday tahay iyo hadday electricity tahay sidoo kale masonarygii aad iyo aadna waan uga mahad celinaynaa maamulka iskuulka oo muddo kooban hayay iyo sida uu u quruxda badan yahay dufcadaha ka soo baxay oo runtii iminka waa midhalkoodii degmada Garadag lagu hayo oo solartii ardaydii ka baxday ay ka shaqeynayso sidoo kale inuu noqon doono insha Allah dugsi soo saara dad aad u tiro badan oo Somaliland hanti u noqda aad iyo aad waan uga mahad celinayaa waa iskuul cusub waxaan leeyahay dadka barta oo iskuulka kaalaya waxa ka maqan qaybtii hurdada sida maamuluhu noo sheegayna sanadkan waxa qorshaysan in ardaydu halkan u hoyato oo ay xirfadaha ku bartaan xirfaddu waa waxa uu qofka raaca runtii oo isaga meel kastuu joogo uu ku munaafacadsanayo shaqana u noqon karta inuu qofku helo waddankuna dee wuxuu guurayaa iminka qof iyo iskilkii qof aan waxba baran ama xirfad lahayn meel la gaari maayo maamulkana waxaan uga mahad celinayaa sida qiimaha badan inuu soo dhaweeyay iskuulka waxaana leeyahay ka faa'iideysto oo aad wax barto horta sidaa la sheegay waxaan joognaa dugsigii farsamada gacanta ee degmada Garadag oo dugsi qiimo badana oo midho dhal wacan oo ummadda anfacaya dhalinyarada anfacaya gobolkan ballaaran ee Sanaag looga baahnaa oo population badan ku nool yahay sida runtiina aqoonta jaamacadeed ee kulley intii hore lagaga wanaagsanaayo lalahaa adigu ilaa Boorama iyo meelahaas hadda gobolada kale lagu xantaa waxaan leeyahay waxaaba ka sii qiimo badan oo inooga wanaagsan anigu dee heer Sanaag baan ahayo weliba dee musharaxna waan ahaa oo sharaxanahayo Sanaag musharaxana codna waa ka doonaya aan ka doonay dee wixii maxaan dhahdaa waxyaabahan waa waxa loo baahan yahay la horumariyo dadkii lagu wacyigeliyo dhalinyaradu u fududaato si ay birina u shaqo tagi karaan oo shaqadooduna ugu fududaato oo aanu caaqilo u kaxaysan suldaanna aanu u kaxaysan aqoontiisa ku filan oo farsamada gacanta waa wax dalka oo dhan ka dhinaayo anfacaya halkan waxaan la taagantii saraakiishii xusbiga wadaniga xusbil xaakima iyagana waxaanu leenahay abaaraha gobolkana waa soo aragteen fariintana de waxa ugu fudud xusbi xaakimkii baa tihiin xukuumaddiina gaarsiisaan buraale iyo dee saraakiishan la socotaba dugsiga farsamada wixii ka dhiman iyo taakuladiisa iyo hawshiisana de maamulkiina waa la taaganahay wixii kobcina u baahan yahay xukuumaddu inay kala shaqeyso ay gaarsiisaan iyaduna way wanaagsan tahay gobolkana abaara ballaaran baa ka jiro runtii aanu soo aragnayo de gobol ballaaran xoolaleeyay buu ahaa biyo la'aan baa ka jirta xukuumadda qudheeda aad bay u eegayaanoo dhismaheedu dee wax badan baa looga tiriya shirarkii ugu waaweynaaye la isku xantaabay gobolku leeyahay oo lagu dhex qabtay waxaanu leenahay warba horta abaaraha iyaga la isuma abtiriye aynu dowladdu si muhiim ah oo dhaqso badan waxa uga qabato biyaha loo soo gaarsiiyo wassalaamu calaykum waxyaalihii ardaydu ay soo saareen farsamada gacanta intii ardaydii qaybtii dawaarka toobabkan kala duwan oo dhisayno kala duwan u toleen oo ardaygani isagoo aan xirfadda dawaarka waxba ka aqoon ayuu iskuulka yimi maantana wuxuu marayaa heer uu sameeyo nashqada uu doono oo uu sameeyo talo dharka
ما شاء الله وح الله غفانه ها أرضي سمية وقرن مجلس ومركز جروبين كوسميان ليلة هذا قفونا جميع سمية توب نوع عبر كيسون تاي هاي قفونا أنت دم سمية قفونا غير كده كجروب اللي بس سواء كلا دارين أي اللي سكينة يا إن شاء الله أروحان بانودي ناوحان سمينا كلا ده سيدود كده يرتاح أيام مركانو أرضي ده كسف فلسطين أيام ويس لقوا عاوية أي لقوا عاوية قبتنا وقبتي بيجلينها lagu baranayo biyagelinta iskuulka oo workshop kiisi oo diyaarsan ardayda ku sameeyaan biyagelinta iskuulkan biyaha qasabadaha ku jira kuwa dhismaha mooyaane waxa galiyay dhamaan ardayda halka qalin jabisay ayaa biyagelisay oo dib u sameysay biyagelintii magaalada ay ka waday macaaninta ceelka hay'adda Oxfam ardayda ka qayb qaadatay halkan iyo cilmi digaanba ardaydan iskuulka baxday bay soo gelisay oo biyagelisay insha Allah يمكن أحد يخلص شغلة كان قولة ذلك والله قاتي إنت وجي بيا قلني مقالة أو كهلا يحفظ دودا قلني كتب بيدك ثان وعرضي برنسي سولار سيستم سولار إنرجي برات كالك مركز سمينا يعني سويتش ذا بارلا لسيرياس لوضع بلودي جا وحدي عبد الغني بالحناشر رح بورد كان كوليكسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحوي وعبد الغني محمد عويل دكتور سكول في الصباح قعنتها دقمة قردق كلي فسرد وحنوها اللي أرضي ذا كلام مقالة ama bulshada kale degmada joogta kulli anagu waxaan u aragnaatay doon muhiim ah inaanu gurigeega inoogu timaado solar system oo ay duniduba u wareegi doonto bardhow oo haday iyo magaalaba leerka laga isticmaali doono marka waan ku mahadsannahay maamulahayguna ku mahadsan yahay dawladuna ku mahadsan tahay hay'aduna ku mahadsan tahay kulli practical iyo theory waanu qaadanaa laba galaas ma nahay shifti A iyo shifti B كل هدانا أنا كنا هاي أرضي سكول كديجانيسي وإن لا قروح بدنا ويدا إن أنا صبحين أنا ديجانا سكول كا أما كان عندي ديجانا عسي أنا كد دور بدنا ماملك إن أنا ديجانا دور كي كل واحد ركتانو برات كالك دمر ونكسب النوم ريا هدانا هاي أرضي دا مركان ما ششالة نمي يحضران تشوفنا إسكسي وما إيكا ما تواضع ركتانو ده حافظة هي جوان جلي كرنا نالركا magaaladana waan geli karaynaa shalay kan waxa weeyaan waa double waa triple switch waa saddex switch iyo socketki iyo laambadihii mid waliba laambad bay xisaabsan tahay kan waa kaan ka dabaysanay fishti weeyaan baraysadii qaadanaysay kulli qalabkii ay nugu yar yihiin waxaan practical ku galeynay kulli kan nooma awoodayay inaanu de fish gelino halkan oo karantiga dhex maraya ayaan noo awoodin kan waxa weeyaan waa wire kaasoo haddaanu ku isticmaalo dabka ama fishta uu qarxaya saad wada ogtiidu kulli hay'adan waxaan ka codsanaynaa inay qalabkii oo dhameystiran waxaanu practical ku qaadanaynay safety dawladda aanu ka codsanayno kulli halka hadda safety baa noogu yaala safety-ga ma hayno de waxaanu ka codsanaynaa inaanu de naga dhex garataan de dadka magaalada